قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد walaalayaal waxaan kusoo guda jirnay muxaadarooyinkeena noo soo bilowday shaladii maalintii labaad ayaan ku guda jirnaa muxaadaradeena koowaad waxaan ogeli doonaa maanta sheekh Xambali ilaahay maaragtay miisaanka xasanaadka u saaro annagana ha nagu anfaco marka walaalaha aad iyo aad waxaan uga codsanaynaa inay masaajidka duudiisa ilaaliyaan maxana sheekh ayaan kusoo dhaweynaynaa falyatafadal mashkuuran wa ma'juura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر الإخوة والأخوات، يقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. آياداasi qur-aanka walaalayaal ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa camal la qabto oo ka mida camallada ama acmaasha ilaahay loogu dhowaado oo qurubaadka loo yaqaano. waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado subxaanahu casa wajal way tiro badan yihiin, laakiin camalkan isaga ahen ka warrami doonee kelmaddeennu ay ku saabsan tahay, allahna waafajiye. ilaahay wuxuu sheegay in qofka ku tilmaaman uu yahay qofka sameeyaahi laga abaalmarin doono xisaab la'aan. cidda xisaab la'aan wax abaal marinaysana waa alle jalla jalaaluh, ay biyadihi tahay miiraahu samaawaati waalard, khasaa'inu samaawaati waalard allaha iska leh, kaydadka cirarka iyo dhulalkaba allaha iska leh, allaha awoodda badan wax walbana ay gacantiisa ku jiraan baa wuxuu leeyahay. allahu tabaaraka wa tacaala wuxuu ina leeyahay walaalayaal, qofkii camalkaa sameeya abaalkiisu xisaab ma leh. camalkaa isaga ah waa sabirka, dulqaadka weeye. dulqaadku marka waa maxay? marka koobaad dulqaadka waxaa la yidhahdaa ama sabirka waa xabsu nafsi, nafta oo la xanibo, waxa ay doonaysana laga celiyo, nafta oo la xakameeyo oo waxa ay doonayso laga celiyaa waxaa la yidhaahdaa sabir la yidhaahdaa. hadda waxaynu sheegnay in ilaahay abaalmarin uu dadka qofka saabirka ah ku abaalmarin doono xisaab la'aan. sidoo kale ilaahay wuxuu noo sheegay subxaanahu casa wajal in nafta oo macnaha sabirka uu tusaya ah, nafta oo laga celiya waxay doonayso lagu muto
ilaahay subxaanahu wa tacaala marka la hor istaagan yahay in lagu badbaado. wa amaa man khaafa maqaama rabbih wanaha annafsa can ilhawa faina aljannata hiya alma'wa. qofka hor istaagga ilaahay ka baqa, naftu waxay doonaysana yac ka yidhaahdo ka celiya, oo aan naftu waxay rabtaba aan ku sii daynin, qofkaa isaga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay in abaalkiisu ay janno tahay. faina aljannata hiya alma'wa. meesha uu u dheelmanayo u hoyanayo waa jannatu lma'waa buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala. waxaa marka iyadana intaynan qodobo kaloo dhowra aynan sheegin xusid mudan runtii inaynu ogaanno farqi baa u dhaxeeyo bayna asabri iyo watakhaaduli. marka dhaqanka aadanaha in badan loo fiirsadana, takhaadulka oo qofka inuu isagu isdayaco ah ayuu wuxuu u haystaa inay sabirkii tahay. iyadana waxay ila tahay masaladaasi in la iftiimiyo inay lagama maarmaan tahay. sabirku waa qofku an yafcala alinsaanu kulla maa calayhi ficluh, inuu insaanku sameeyo wax kastoo laga doonayo, hadday cibaado noqon lahayd, hadday camal adduunyo noqon lahayd, wixii waajibka ku ahaayee laga doonayay in uu sameeyo, haddanana uu ma aragtay sugo khayrka. uma alintidaar inuu khayrkiisugo, uma alintidaar ila alkhayr, inuu khayrkii sugo oo khayrkii iyo guushii inuu markaa helayo uu korto ama sugo ayaa waxaa la yidhaahdaa sabirka. takhaadulka waxaa weeye inuu qofku khayr tamaniyo, liibaan inuu tamaniyo, nolol fiican inuu tamaniyo, duuna alqiyaami biayi majhuudin yudkar, isaga oo aan wax tallaabo ah qaadin. wax tallaaba isagoon qaadin waxay la mid tahay marka qof yidhi inaan tarmoon ubad dhalaan doonayaa mana guursanayo, inaan janno galaan doonayaa, camal wanaagsan oo ilaahay loogu dhowaadana ma samaynaya yidhi bay la mid tahay. kaasi waa khudlaan ee sabir ma aha. waan iska sabrayoo reer ma yeelaninoo inaan tarmaan rabaa ma aha sabir, waa takhaadul. adiga ayaa inkastoo dee guurku uu yahay risqi ama biil ka mida biilasha ilaahay uu bixiyo, oo mar hadduusan ilaahay kuu qadarin aadan helaynin, haddana waxaa weeye in asbaabtii lala yimaado. asbaabtiiyoo lala yimaado iyo wixii aad guusha ku gaari lahayd ood khayrkii markaas sugto, sabir baa la yidhaahdaa. waxaan aad samaynayso ood ku dul sabarto khayrkii waa sabirkii. inaadan waxba samaynin haddana aad rabto inaad badbaaddana waa khudlaan, waa adigaa islugooye, lugooye weeye, ee sabir lama yidhaahda taas iyada ah. sabru lambiyaa in badan baad maqasheen baan u malaynayaa. sabru ayuub calayhi salaatu wassalaam iyo sabirkiisii, intaasoo sanuu xanuunsanaa, xitaa ilaahay uma dacwoonin subxaanahu wa tacaala. ilaahow waxaan iga qaad xitaa ma uusan dhihin. markii dambe oo in nebinimadiisii iyo reerkiisii ay burburaan uu ka shakiyey buu ilaahay baryay, ilaahayna waa ka fayday markii iyada ahayd. sabirka ambiyada, nebiyullaahi yuusuf sabirkiisii, xabsiga inuu ku sabray, marka hore macsiyada ka sabray, waxyaabo badan. nebiyullaahi ibraahim inuu ku sabray in wiilkiisii la yidhaahdo uu weliba weynida ku dhalay. qofka marka uu isagoo da'ah ilmo ilaahay uu siiyo, iyo qofka isagoo da'yar ee ilmo ilaahay uu siiyo isku ilmo jacayl ma aha. ilmaha sanadkaad markaad weynaato ilaahay uu ku siiyo waad ka jeceshaha ilmaha kale. marka nebiyullaahi ibraahim isagoo da'ah oo nin weyn ah ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi ismaaciil siiyey. waa lagu imtixaamayoo sabirkiisaa la eegayey. gowrac baa la yidhi wiilka, inuu wiilkiisii gowracuu ku sabray
guushiina iyadoon aakhare la gaadhin buu adduunyada ku helay soo ma aha. nebiyullaahi ibraahim sidoo kale in dacwadii iyo diintii uu istaagiddeedii intuu wax walba ku bixiyey ilaa heer la gaadhay in dab lagu tuuro oo ilaahay markaa uu u beddelo qawaaniinkii kownkoo dhan buu ilaahay dartii u beddelay. dabku inuu wax gubo waa shay dadkoo dhan ay isla wada ogyihiin soo maa, la isla wada ogyahay. haddanana inayna dabki inuusan wax gubin buu ilaahay xugmiyey. ilaan gubitaankan dabkan iyo gubiddiisaba ilaahay baa abuuray. malaa'ig ilaahay subxaanahu wa tacaala aan caasinin baa ka shaqaysan naarta. haddana waxaa la yidhi ahlu naarkaa naartii lagu ciqaabaya, malaa'igna way ka dhex shaqaysaa. say ku suroobi malaa'igtanna ilaahay baa janno iyo raaxo ooga dhigay, kan lagu ciqaabayana ilaahay baa ciqaab ooga dhigay. soo sidaa ma aha. marka nebiyullaahi ibraahim macaayiirtii iyo qiyaaskii ibni aadamka ee xitaa shaygan iska caadiga ahaa buu alla daraaddii u beddelay qawaaniinkii kownka, oo baddii baa ilaahay wuxuu oga dhigay bardan wa salaaman calaa ibraahim. nebiyullaahi yuusuf xabsigii iyo gurigii maaragtay lagu addoonsanayey buu ku sabray. nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhibkii loo geysanayey, saxaabadiisa dhibaatooyinkii loo geysan jiray, qaar la laayey, qaar la jiir dilay, waxaasoo dhan bay ku sabreen, guushiina way gaadheen. allaha guusha bixiye marka wuxuu guusha ugu talagalay, guushani hadday cid walba hadday heli lahayd dee guushi qiimo badanba ma yeelateen. soo saas ma aha. ninka hadda dhakhtarka noqonaya ama looyarka noqonaya ama bayloodka noqonaya, haddii kan play stationka iska ciyaarayaba uu iska noqon lahaa, ma qiimuu yeelan lahaa? maya. shaygani markaad u soo jeeddo eed u dhafarto, naf iyo nafiisba aad ku bixiso, caqligaadii iyo maskaxdaadii aad isugu geyso, ayuu mustaqbalka markaa qiimo yeeshaa. laba nin oo midna waxaad arkaysaa xilligii waxbarashada ku dadaalay oo waxyaabo badan oo isaga dadka la da'da ah ay samayn jireen naftiisa ka celiyey, si uu hadhow markuu weynaado 60 iyo 50 gaaro uu u nasto. guushii buu gaarayaa. nin waxbarasho leh, waxbartay, waqtigiisana ka faa'iidaystay buu noqonayaa. ninkan iska ciyaaraya ee markii la yareeyaa Tom and Jerryga iyo waxyaabahan aan iska celin karin, play stationka aan iska celin karin, naftiisa aan qorshe u samayn karin, aan sabirka lahaynna, hadhow baa xitaa haddii uun shaqaba ilaahay siiyo barafka lagu xaaqdaa. qashinka meelaha ka qaadqaad baa la yidhahdaa, ilaan xirfad kale ma lihide. markaasuu shallaayayaa odhanayaa, markaad yarayd maxaad waqtiga oga faa'iidaysan weyday, si markaad weynaato aad u raaxaysatood u nasato. midda iyada waa adduunyadii marka miithaalkaasi caadiga ahaynu la noolnahay maalin walba markaynu aragno. aakhirad maxaad mooday marka, oo meeshii lagu noqonayey ah, meeshii lagama maarmaanka ahayda maxaad u malaynaysaa marka? sabir bay u baahan tahay aakhira marka. aqsaamu sabirka waa 3 qaybood siday culimmadu sheegeen. waana in badan baad maqasheen. asabru cala ataaca, in lagu sabro taacada. salaada adigoo hurda oo maantoo dhan mu'tamar ka shaqaynayey, oo maantoo dhan wax akhrinayay, baad xoogay gam'aysaa ood seexanaysaa. dhowr saacadood markaad jiifto ayaa waxaa lagu odhanayaa xaya cala asalaati, xaya cala alfalaax. liibaanta iyo salaada u kaalay. oo waa maxay? markaan soo toosteen hurdo bogto maan tukado? maya. qawaaniinkii rabbi baa wuxuu ku dareersaday, ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta. xilli kasta laga aqbali maayo, xilli go'an oo la aqbalay salaadu leedahay. ka kac hurdada marka. waad soo shaqaysatay, xoolaad uruurisay, markaad istiritan xoolahan adiga naftaada wax ku tar, yaa waxaa lagu yidhi waryaa maanta masaajid dhisaya, waryaa masaakiin wax siinaya, yaa qaraabo gacan qabanaya. markaasaad bixisay
inta iyada ahayd bixinayso doorimaadkaas aad naftaada ka doorbiday ee aad dadka kale u doortay xoolahaadii waa jacayl ilaahi subxaanahu wa tacaala wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waxay u baahan tahay marka sabir waxay u baahan tahay jacayl alle wayuطcimuuna aطacaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman wa asiira ilaahay jacaylka ay jecel yihiin daraaddii bay waxaan u bixinayaan inay ka maarmaan ma aha inay ka go'do ma aha laakiin mar haddii la yidhi ilaahay dartii wax oola baxa ilaahay dartii wax oola baxa ayay waxay samaynayaan jacayl ay alla jecel yihiin subxaanahu wa tacaala ayay waxay u bixinayaan sabir bay u baahan tahay marka sadaqadii baa sabir u baahan hurdada in laga kacaa sabir u baahan daacada rabbi oo salaada iyo sadaqada aynu maaragtay ku miithaalinay baa sabir u baahan wahaakadaa marka cibaadaadka iyo qurubaadka kale oo dhan waxay u baahan yihiin sabir bay u baahan yihiin nin la yidhaahda ibnu cadiyin ayaa wuxuu yidhi wallaahi weligay qof ima weydiisanin dan iyo xaajo hadduu i weydiistana qumtu lahu binafsi anigaa u istaaga u fiirsada hadalkaa wallaahi wuxuu yidhi weligay qof ibni aadam ah dan uu leeyahay ma aha masaajid dhisid ma aha kitaabka imow ma aha mu'tamarkan kaale nagala shaqee dacwada iyo diinta kaale aynu ku walaalowne ma aha ilaahay dartii aan u walaalowna ma aha dan isaga uu leeyahay aynu miithaalinno kaalay guriga roog ila soo dhig guri cusub baan degaye kaalay maaragtay qalabkii iyo sida loo xidhxidhayay ila dhig weligay qof dan ima weydiisanin ilaa qumtu lahu binafsii fain tamma fadaaka falamru waadix hadday sidaa ku dhammaato dee sheekadii waaba isku dhammaatay haddii ay sidaa ku dhammaan weydo hadday sidaa ku dhammaan weydo oo ay suuroobi weydo inaan aniga u istaago oo aan arrintii aniga u qumo waxaa weeye fa biikhwaanii walaalahay baan kaalmaystaa buu yidhi walaalahay baan intaan ku dhex dhaco saaxiibbaday qaraabaday cid alla ciddii aniga wax iga maqlaysa intaan ku dhex dhaco oon af labadii dhawaaqaan waxaan idhaahdaa ceebtiinna allah asture xil baa maanta ii saarana ixil furta ayaan idhaahdaa fa in tamma waa sidii la rabay hadday sidaa ku dhammaato waa sidii la doonayey wa ilaa wuxuu yidhi fa bisultaan maya waxaan soo ilooy marka hore fa bimaalii fa biikhwaanii fa bisultaan saddexdaa jaranjaro ayuu maray anigaa u istaaga hadday suroobi weydana xoolahaygaan ku bixiya da' baan ahay maalan derbigan kaale ila jebi buu yidhi intaad micwalkan iyo buriskan qaadato derbigan kaale ila jebi anna ma jebin karo xoolahaygaan marka isticmaalaa buu yidhi oo nin xoog badan intaan soo kiraysaan waxaan idhahdaa anaa mushaarka ku siinaya ninkan derbiga la jebi waa tusaale wax kasta uusan qaban karinna laakiin marna ma dhaho markii qof isaga hadalka wuxuu u dhacayaa un qof ibni aadam ahoo muslim ahoo allihii alla yahay weligii dan ima weydiisan ilaa anaa u istaaga hadday suroobi weydana xoolahaygaan ku bixiyaa si dantii ay u hirgasho hadday suroobi weydana walaalahay baan la kaalmaystaa oon dhahaa kaalay ee xil furta hadday suroobi weydana sultaanka iyo ninka magaalada xukuma ama boqorka ama madaxweynaha tiraahdo ayaan u tagaa xilkaasaa maanta i saaran ee ila fuli ilaa heerkaasay marka dadkii hore gobonnimada akhyaarnimada iyo dun wanaagga halkaasay ka marayeen waxaas waxay u baahan tahay sabir dulqaad bay u baahan tahay marka qaybta koowaad ee sabirku marka waxaa weeye inuu qofku daacada rabbi ay ugu weyn tahay waajibaadka nawaafisha qofka inuu muxsin noqdo qofka inuu daaci noqdo daacada rabbi waad wada garanaysaane in lagu sabir bay u baahan tahay qaybta labaad ee sabirku uu leeyahay sidaan culummada in badan ka maqalnay waxaa weeye alsabru can ilmacaasi macaasida iyo shahawaadka in laga sabro iyaduna sabir bay u baahan tahay in laga istaago nin adiga kula mid ahaa jaamacad buu bilaabaya adiga waxaa lagu odhanayaa 1900 karoon qaado midka kale intuu dayn iska qaato iska daldasho
ayuu wuxuu raba samaynayaa oo maaragtay riba ah. adiga marka inaad ka sabirto waxay u baahan tahay raganimo dheeraad ah. inaad tiraahdo adduunyadani waa ciyaari, waa gelin dambe, adduunyadan dib baa loo aayi doonaa, ma samaynayo inaad tiraahdo ood ka sabirto ood ka hakato. gabar qurux badan baa kaa soo horbaxday, mid baa isku duubay, inaad adigu tiraahdo maya, laa, macaada allah, ilaahay baan anugu ka baqayaa, sabir bay u baahan tahay. inaad wax alla wixii xumaan ah iyo shahawaad ah, durbaan iyo digdig iyo dabalulid iyo xaflad baa meesha ka jirtayoo waa shidan tahay, dhallinyaradu say dhahaan xaflad shidan yaa meesha ka jirta, inaad ka istaagto ood ka joogsato waxay u baahan tahay sabir bay u baahan tahay. nin qof kasta ma samayn karo. qof saabir ah oo og inuu ilaahay hortiisa hor istaagi doono, inuu jannatul ma'waa doonayo, inuu qofku ilaahay la weynaado unbaa sabirka noocaasa garanaya. qaybta saddexaad ee sabirka waxaa weeye asabru cala alibtilaa, masaa'ibta iyo dhibaatooyinka in lagu sabro weeye. way noocyo badan yihiin siday culimmadu inoo sheegeen ibtilaaga. dadku qaar baa waxay moodayaan ibtilaaga la sheegayo cudur iyo gaajo iyo ammaan darro, inta hadda waddankii taalla Soomaaliya iyo Afrika taalla, intaasay moodayaan. meeshan markaad timaaddo waagii baa kugu baryaya. gaajo inaad ka badbaaddo waa dhici kartaa, ammaanna waad heli insha allah, waxaad dhibaato cudurradan waxaana daawo u heshaa dhici karta. laakiin gaalnimaa kuu soo muusaysa, carruurtii baa ma aragtayay aad ku imtixaamaysaa, reerihii baa burburaya, dhibaatooyin badan baa yeelanaya, dariskaabaa kugu xumaanaya. ninkaad adigu wax tartay ee ama aad soo korisay ama fadliga badan aad ku lahayd yaaba isku kaa soo rogayaba. in badan baad maqasheen baan u malaynayaa, ninkii hebel ahaa bacdii baa bannaanka loo dhigay. sidaad hadda ka hor iga maqasheenna arrintaasi waa arrin dee aan mukhtalafun fiihi aho rag iyo dumar waa isku khilaafsan yihiin, laakiin anigu waxaan u malaynaya rag inay gar leeyihiin. maxaa yeelay inaan xagga raggaan u janjeero maaha, laakiin aniga weligay ma maqlin dhowr meelood oon muxaadaro ka jeediyeyna dadkan xitaa marageliyey. haddana inaan idin marageliya dhibba iguma hayso. aniga cimrigay ma maqlin gabarh baa bacda bannaanka loo dhigay. war ma maqasheen? qof dumar ahoo xil kugu leh oo joogta yaa la iskhilaafay oo gabadhii bacda bannaanka loo dhigay, ma maqasheen? ya maya, systemka waa loo siman yahay oo nin walba gurigan ninbaa waa la wada kiraystay, waa la wada haystaahe. laakiin yurubiyaanku ma odhan karaan si toosa dumarka ayaanu tol la nahay oo dumarka naxige ee ragga nama xigaan ma odhan karaan. nidaamka iyo qawaaniinka waa loo siman yahay. laakiin anigu waxaan u malaynayaa xoogay gobonnimo iyo dun wanaag. gobonnimada hadda midii aad dadka qaar aad ku lilidi jirteen kama wado, laakiin dun wanaag ragga ah iyo xagga sabirka unbaa lagu kala duwan yahay. oo ninku wuxuu ka sabrayaa oo uu walaashii u quuri waayayaa iyo xaaskiisa, adigaa xoog badan oo barafkan iyo waxaan u babacdhigi karee, adigaa iskaabulo iyo meelaha tegi karee, gabadhan muslimadda ah xilligan dibadda ha u saarine. hadduu u saari karo waana ka xoog badan yahay, waa saari karaa. hadduu dacwooyo dhooshaha bay igu shubtay iyo saliid bay ii karkarisay iyo waxaasoo dhan hadduu yidhahdo wuu samayn karaa. waana haddii la soo ogaadana waa wax dhici kara weeye. laakiin inay arrintaa jirtaan u malaynayaa. arrintaasi marka sabir bay u baahan tahay, sabir iyo dulqaad bay u baahan tahay. qofkii kuugu dhowaa baa ilaahay kugu imtixaamaya, qofkaad naftaada u hurtay baa ilaahay kugu imtixaamaya. sabir bay u baahan tahay. arrintaas iyadana marka in dhibaatooyinka lagu sabro, cudurrada iyo xanuunadan farada badanne horeynan u aqoon jirin, qaar maskaxda ku dhaca, qaar jirka ku dhaca, qaar caruuraha ku dhaca, hawadan iyo waxaanaynu u nimid, waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin sabir iyo dulqaad. barafka aad soo dhex marayseed kelimada ilaahay maqalkeeda aad soo doonanayso, sabir iyo dulqaad bay u baahan tahay. sabir iyo dulqaad ayay u baahan tahay. sabirku ayuha alaxibba wuxuu u baahan yahay, aad buu muhiim u yahay. qodobo dhowrahan sheegi doonaa, hadalkaygan aan kusoo gabagabayn doonaa insha allah. qofka sabraa waa annagii ku bilownay hadalkeen nidhi innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab.
horta sabirka ilaahay baa xisaab la'aan kugu abaalmarinaya thawaab iyo ajir rabbi baa lagu helaa waa kow yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالصabri waالصalaah buu yihi allah subxaanaه wa tacaala kuwa iimaanka laga helayow sabirka iyo salaada kaalmaysta sabirka iyo salaada haddaad dhankii cibaadada aadan ka eeginaya xaggii camali ahaan haddaad u eegtay bratic ahaan waa dulqaad waa la tukaday matalan hadda casar baynu tukanay soo ma aha inaad fadhido xoogay ood wax akhriso wax akhriskaad ku baranaysaa ahamiyatu lqiraa'a mar ay culammada qaar ka mid ay ka hadlayeen waxyaabaha qiraa'ada iyo inaad wax akhriso lagu barto waxaa ka mid a inaad naftaada ku qasabto kuna tarbiyayso kuna layliso in markay salaada tukato aadan durbo un aadan balow dhihin inaad fadhido xoogay oo adkaaru salaa bacda adkaartii la akhrin jiray bacda salaa inaad akhriso waxay maskaxdaada u keenaysaa markaad daa'imtood ku sabirto inaad hadhow yeelato kaadsiiyo ood wax akhriso ood buugaagtii adigu iyo kutubtii adigu aad saaxiibba noqotaan xilliyadan shanta laga dhigay waa la oran jiray hal mar ha la isku dabadaro inaad iga maqasheen baan u malaynayaa safiinatu najaa kitaabka la yidhaahdo ee fiqiga laga bilaabo anigoo 7 jir la ii dhigay marka ilaahay qudradii salaatul jamci markii la marayay salaadaha jamcintooda markii la marayay iyo waxa isku soo beegmay anigoo maalinkii ku xigtay safar ahaa sheekhi baa kitaabkii noo akhriyay salaadaha duhurka iyo casirka in la isku dari karo maqribka iyo cishahana la isku dari karo ayaa kitaabka ku taala Soomaa salaadii subax baan tukaday marka aniga waxay ila noqotay in aan la isla suugi karin la isku dari karo markaasaan duhurkii iyo casirkii anoo salaada subax joogaan duhurkii iyo casirkii isku daray maqribkii iyo cishihiina waan isku daray waa salligii ama meeshii masaajidkii aan ku tukaday salaada subax gaarigaygaan iska raacay dadku way tukadaan war ma tukatid anuu salaadii waan isku soo daray baan iraahdaa marka salaadahan la waqtiyeeyay ee la yiri xilligaa tuko waqtiyada loo yeelay sabir baa ku jira sabirkaad ku baranaysaa inaad waqtigaada maarayso oo aad nin jadwal ku socoto leh aad noqoto qalbigaadana ilaahay uu ku xidhnaado ayaad ka baranaysaa marka ajri iyo sawaab baad ka helaysaa sabirka haddaad ku dadaasho qofka asabru yucti al-insaana quwwatan litaxamuli almasaa'ib qofka saabirka ah sabra awood buu helayaa oo dhibaatooyinka ilaan adduunyaa la joogaa dhibaato lagama maarmaan weeye dhibaatooyinkan iyo aafooyinkan dhacaya imtixaanaadkan inuu taxamulo oo uu dulqaad u yeesho sabirka ayaa laga helaa waxaa la yidhaahdaa man thabata nabat man thabata qofkii sugnaada nabata wuu dhashaa laakiin qofka aan fadhiisan karinba xaggan u bood kitaabkan hadda bilow durba ka bood jaamacaddan bilow markay muddo ka hor timaado jaamacadda iyo waxbarashadu way ku harowsanaysaa sidaa daraaddeed ixsaa'iyaad la sameeyey jaamacadaha bisha u horreysaa looga tagaa inta badan dad fara badan ardada jaamacadaha dhigata hoolka markii ama waxbarasho la bilaabayo dad fara badan baa yimaada laakiin in badan oo ka mida way un gadaal bay ka sii siibtaan waxaasoo dhan waa sabir la'aan iyo dulqaad la'aan macluumaadkan soo gaaraya noloshan cusub ee hadda uu bilaabay ayaa waxay la noqonaysaa wax uusan wadi karin sidaa daraaddeed bay dad fara badan waxbarashada ay ka daataan laakiin man thabata ninkii sugnaadaa oo yidhaahda bal ka gungaadh marka hore tasho oo waxbarashada aad bilaabayso gabadha aad guursanayso wiilka aad nolosha la wadaagayso degmada aad degayso meeshaad ka shaqaynayso marka hore istikhaarada iyo wadatashiga badi laakiin markaad wax fooda geliso ha degdegin degdegu waa min ashaytaan sabirka iyo dulqaadka iyo sugnaanshaha iyo xilmiguna waa min allahi tabaaraka wa tacaala marka man thabata ninkii sugnaadaa nabata wuu dhashaa waa geed dhashay oo kale waad soo dhalanaysaa jirid baad yeelanaysaa waad xoog baad yeelanaysaa laamaad yeelanaysaa waxtar baad noqonaysaa way marka dambe waxtar
baad noqonaysaa. laakiin haddaad booboodo oodan sabir balahayn meel ma gaadhaysid. soomaaliduna maxay odhan jireen nimaan shaqaysanin hee shaah waa ka xaaraan, ninkii sabraa sadkiisa hela. marka waxaa la doonayaa masaa'ibta waxaa looga gudbaa, natiijadana waxaa gaara ninka sabra. la astashilanna sacba, shaacirkii carbeed muxuu yidhi la astashilanna sacba aw udrika almuna faman qaadat alaamaalu ila lisaabirin. waxyaabo dadka la culus ayaan anigu waxaan ka dhigayaa wax fudud inay yihiin oo la qaban karo. muxuu saa u yeelayaa? faman qaadat alaamaalu ila lisaabirin. yididiilada iyo meelaha la shinsanayo, waxyaabaha lagu naaloonayo, ahdaafta la gaarayo, moolka iyo ujeeddada loo socdo ma gaaro ilaa lisaabirin. qof sabra unbaa gaadha. tusaale yar, qofkan waa wuxuu iska dhaadhiciyey ogaada. ibni aadamku ayuha alaxiba waa ibnu tafkiirihi. waa hadba saad u fakarto. hadda markaad matalan waad mashquul baad ahayd, aad baad mashquul u ahayd, salaaddii subaxay ka dhiman tahay baad aragtay 2 saacadood ay ka dhiman tahay, waadna hurdo badan tahay. ka soo qaad sideedoo kale nin hurdo badan baad. anigu dadka aadka u hurdo badan baan ahay. hurdadan iyo hunguriga iyo waxaana dadka isuguma jiraan. nin walba waxaa weeye nin walba tabartii bay qodax ugu tagtaa. soo sidaa ma ahayn? hurdada inaan hurdo badnahay waxaad ku garanaysaan marka lay toosiyo la yidhahdo orodoo dugsiga aad, guriga in markaan ka baxaya ilaa iyo dugsiga meesha uu ka jiro waxaa u dhexaysa 2 kilomitir. waan sii seexan jiray anoo socda. maalin baan geed garas ah anoo socda intaan geedkii ku dhuftay halkaa dhash ka siiyey oo dhiig iga soo daatay. geedku xoogay maa'il buu ahaa. qof dakhramay oo dhiig ka soo daatay soo intuu naxa uu toosa ma aha. meeshii baan isaga dul seexday. qorraxdii kuleelkeedii baan kusoo toosay. geedkii baan sariir ka dhigtay. igamaba qasnayn anigu. hadda ka horna inaadan kaga sheekeeyaan u malaynayaa intuu aabbaha i toosiyo yidhi ordoo dugsiga aad. dhallinyarada aad ha u dhagaysata meeshan. aabbayaashan lagu soo afcelinaya annaga maanan aqoonin. aabbahay intuu ka odhanayo waryaa istaag baa ka hadhay. waryaa istaag. ul mareerahoo dheerna halkan ay u taallay oo aad u xanuun badan. aabbahay dadka ma dili jirin, laakiin ushaasuu nagu cabsiin jiray, wuuna na guulguuli jiray. markaasaan soo baxay, bannaankan u soo baxay. bahalkan la yidhahda hangaralaha ama dibqalooca miyaad tidhaahdaan ayaa ay qaniinay. weliba mid mariid badan, waana yaraa oo 7 jir baan ahaa. mid baa halkaas lugta midigta ah ayuu dhag iga siiyey. waan marka alla aabbow baan idho, marka aabbahay baan ku soo noqday. aabbahay marka wuxuu mooday inaan dugsiga diidana ayuu mooday. haye soo dhowow wirkaale maxaa kugu dhacay? markaan u soo dhowaadayba ushii mareerkeed iga soo rogay. halkaas intay iga bilaabatay yay waxaa weeye meeshaasi si fiican bay horta ushii igu dhacday, laakiin ul qiimo badan bay noqdo. suntii hangarlaha iga baxdayba. jirkii markuu radulficli sameeyey suntii hangarlaha iga baxday. waan yaraha dhutiyey. sac geesa dhaadheer oon lahayn oo dadil ahaa. dadka sacan looda qaar baa doqoma oo dadka dila, qaarna waa iska macnaysan yihiin. dadil baa la yidhahdaa. sac dadka dili jiroo geesa dhaadheeraa waa anigoo dhutinaya markuu arkay loona wax ka garasho darane ayuu intuu geeska igu qaaday oo uu ila orday ilaa iyo derbigaasoo kale mus meeshan ah oo aanu lahayn ayuu geed xanan ah igu tuuray. jirkaygan aad aragtaan meel walba qodox baa ka gashay. ilaahay baa indhaha iga duway. markaan aan arkay baan idhi maxaad samaysaa? hangaraldhihii baa ku qaniinay. aabbaha baad u noqotay. ul mareeraha dhaxashay. ul mareeraha lagugu dhuftay. haddaad tiraahdo sac baa idilo mus baa la igu tuuray maxaad samaynaysa? iska dhutiyo iska lugee. looxaygii baan soo dhigtay. meeshaan looxa ka bilaabay ilaahay hadda waan garanaya. wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnan xamalatu. halkaasuu ka bilowday. laakiin ciilkii maalinkaa ay qabtay haddaan madaafiic haysan lahaa, macallinka iyo aabbaha iyo wax meesha degan oo dhan waa baabiin lahaa. almuhim, dulqaadka iyo sabirku aakhirkiisa waa loo aayaa, waa loo baxsadaa. oo qofka marka uu sabro, waxyaabaha culculusna ay la fududaadaan. dadka wax la culus oo aad kuula culus, marka adiga ay fudeyd kula noqdaan, guushii baad gaadhaysaa. la astashilanna sacba aw udrika almuna faman qaadat alaamaalu ila lisaabirin. asabru ayuha alaxiba miftaaxu lfaraj baa la yidhaahdaa. dulqaadku waa furihii guusha.
ayaa la yidhaahdaa. wuxuuna ku siinayaa qanaaco in waxa aadan haysaninna aad ka qanacdo, waxaad haysatana ay ku deeqaan. sabir baa lagu gaadhaa. sidaa daraaddeed waxaad haysato reerkaadaad ku qanci, gurigaadaad ku qanci, carruurtaadaad ku qanci, mushaarkaadaad ku qanci, aqoontaadaad ku qancaysaa. qanaacadaasi sabir bay u baahan tahay iyadana. haddii kale waxaad noqonaysaa nin mar walba wuxuu arkaba u hanqaltaaga oo aan iimaan yuqyuqaba ayaad noqonaysaa. wadulqanaacati raadin fii maciishatihi wa akhulxirsi in ahraa faqadbaanu ayuu yidhi ninkii la odhan jiray albusti. wuxuu yidhi qofka iimaanka qaba, qofka iimaanka san, iimaanka hadda midkii gaalnimada ahaa ma aha, midkii gaalnimada ka soo horjeeday maaha, oo qofkan iimaan male waa gaal ma aha. laakiin soomaalidu hebel waa iimaan daran yahay maxay ka wadaan? iimaan ma laha maxaa laga wadaa? uun guri badan yahay baa laga wadaa soo maa? yacni qof waxba ma deeqaan. wadulqanaacati marka kan iimaanka san ee iimaankiisa qaba ee wax walba ku qancaya, raadin weeye min maciishatihi, noloshiisuu raadi ka yahay. wa akhulxirsi kan aan iimaanka lahaynna in ahraa, xitaa hadduu hodan noqdo, faqadbaanu waa cadhaysan yahay. xoolo wuu haystaa, guryo badan buu haystaa, waa maalqabeen, laakiin haddana waa cadhaysan yahay. maxaa yeelay qanaacadii baa ka maqan. inaad qanacdo oo waxaadan haysanin aad ka qanacdo, waxaad haysatana aad ku qanacdo, sabir bay u baahan tahay. waxaan ku soo gabagabaynayaa walaalayaal, wasbir calaa kulli maa yaأti zamaanu bihi sabra alxusaami fii kafi daarici albaطali ayuu yidhi ninkii la odhan jiray asafadi. sabirka marka la sabrayo ma aha in waa lagaa dhintay ee sabir keliya ma aha sabirku. dad badan baa sidaa u haysta. musiibaa kugu habsatay ee ku sabir ma aha. waxa lagu sabrayo waa bikulli sagiiratin wa kabiira, wax yar iyo wax weynba waa lagu sabrayaa. sabirkana xilligiisi inuu noqdaa la doonayaa. gabadhii uu wiilka ka dhintay xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee saxaabiyadda ahayd, ee dharkeedii jeexjeexday, timaha ciidda isaga shubtay, iyada oo xaalatuha xaala ay tahay oo ilaahay uun xaalkeeda og yahay, ayuu nabigu soo maray calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi yaa amata allah isbirii waxtasibii, dulqaado oo adkayso ayuu ku yidhi, oo ajir gurubso. musiibadan kugu dhacday ilaahay ugu dhowow sabirkeeda. markaasee nabiga waxay ku tiri gabadhii, ilayka cani, oo macnaheedu yahay iga fogow, waxa igu dhacay kuguma dhicine iga fogow bay ku tiri. markaasuu nabigu yidhi isaga tegay nabigu sal allahu alayh wasalam, gurigiisuu galay. markay ogaatay ciddii la hadlaysay inuu nebi moxameda calayhi salaatu wasalaam, ayay ka daba tagtay. gurigii ugu gashay nabiga sala allahu calayhi wasalam, sidaas xadiidka uu caddaynayo. waxay tihi nabi allow kumaan garanaynine raalli ahow. ilaa nebiga ilaahay wax ku yidhi oo la diido waa khatar soo maa. nabi allow kumaan garanaynine iga raalli ahow bay ku tiri. nabigu muxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, alsabru cinda asadmati aluulaa. sabirku waa fakta hore, waa jodha hore weeye sabirku. hadda maxaad qaban? waad ooyday, waad soo ohimbogatay, ma wiil baad soo ceshan? ya waad isqaraacantay, dhulkaad isla dhacday, timihii baad iska riftay, waad isjeexjeexday, haye waa bacdeen maxaa ku xiga? ma wiil baa kuu soo noqon? maya. marka waxaa sabirka marka uu xanuunka badan yahay, markuu xanuunka uu ku hayo ee xilligeedii la joogo, markaa inaad sabirtaa loo baahan yahay. laakiin marka dambe kida waad sabraysaa, ama sandullaad ku sabri iyo qasab, ama haddii kale qanaaco iyo waxaad tawcan baad u sabraysaa. waxaa fiican marka in tawcan lagu sabro, loo sabraa fiican, xilligeedana lagu sabro ayaa wanaagsan. mar walbana sabirka markaad sabirto ajir fara badan buu qofku uu helayaa. wasbir marka ninkan wuxuu leeyahay wasbir, dulqaado oo sabir calaa kulli maa ya'ti zamaanu bihi. maanta waa maadu cumuum bay faa'idaysaa. wax kasta oo waayuhu ay kugu keenaan, waaye waxba ma keeni karaane nimankan suugaanyahanada ah ayaa markay xilliga way ku hadal qabsadaan. xilli waxba ma tari karo, ta'hiirna male, ilaahay baa wax qadara. dhib iyo dheefna ilaahay baa keena, soo saas maaha. laakiin maadaama ay dhibkiiyo dheeftii ay dhex dhacaan xilliyada iyo wakhtiyada,
ayay ku hadal qabsadaan qolyaha caqiidada culimada caqiidada ka hadasha ma jecla erayadan oo kale laakiin hadda meeshaan oga socdo un waad ila garanaysaan insha Allah wasbir calaa kulli maa ya'ti الzamaanu bihi waayuhu wax alla waxay kula yimaadaan ku sabir oo ku maaragtay dul qaado sabr alxusaami mithaal baa marka la siiyey waana mithaal tashbiih baliiq oo balaaqada ka hadasha aad u xeel dheer weeye wuxuu yidhi sabr alxusaami alxusaam waa sayfta asayf iyo almuhanad iyo alxusaam iyo way albaraaqa iyo magacyo badan bay leedahay sabr alxusaami seefta sideedoo kale u sabir oo seeftu say u sabirtaa sabr alxusaami fii kafi daarici albatali geesi nin geesi ah asal ahaan geesi buu u yahay gaashaaman haddana tababaran oo tadriib soo sameeyey xagganna xagga wadnaha markii la yidhahdo geesi ah seefta uu ku dagaalamayo siday u sabirto u sabir su-aashu marka waxay tahay seeftaasay u sabirtaa seeftaa waxay u sabirtaa haddii geed lagu dhufto iyo haddii dhagax lagu dhufto iyo haddii mu'min lagu dhufto mid owliye haddii lagu dhufto gaal munaafaqa haddii lagu dhufto haddii dhulka lagu dhufto haddii wax kastoo lagu dhufto ninkan haya unbaa xukumo soo maaha iyadu miyay odhanaysaa war iga daa ya war iga daa niyo waan daalaye iga daa miyay odhanaysaa war seeftaa siday u sabirto u sabir buu ninkan leeyahay nimanka dadka suugaanyahanada ee gabiya hadalka waxaad is leedahay ilaahay siduu yidhi godkii la geliyey bay kala soo baxayan intay oga daba tagaan washucaraa'u yattabicuhum alghaawuun alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun hadalku meel kastoo uu galo ma warqad baa loogu dhigay baad leedahay meeshsi bay ugu tegayaan markaasay ka soo saarayaan markaad dul qaadanaysa sabrayso sabra alxusaami fii kafi daarici albatali nin geesi ah oo haliyey ah oo haddana tababaran geesi taag daran baa jira ma og tahay mid taag daran oo waxaa jira isna khatar ahoo geesi ah laakiin aan awood badan haynin kaas waa kii hore mid waxaa jira xoog badan oo feedhuhu intaa la eg yihiin oo murquhu intaa la eg yihiin haddanana laakiin aan wadna haynin geesnimaan haynin soo maa marka labadaba qofka hadduu ilaah isugu kaa daro dee ninkaasi nin loo babca dhigi kara maaha ma nin la iska celin kara maaha ninkaasi seef gacantiisa ku jirta siday u sabirto oo kale u sabir wax kastana weeye wax weyn iyo wax yar iyo wax fudud iyo wax kasta hadda adoo shaqaynaya oo mu'tamar ka shaqaynayaad ninkaad wada shaqaynayseen iyo gabadhaad mu'tamar ka shaqaynayseen baad jiq is odhanaysaan ama mararka qaar yacni matalan aragtidii kala duwanaanaysa waxaasoo dhan sabir bay u baahan yihiin gawaaridaad raacaysa sabir bay u baahan yihiin guryaheennu sabir bay u baahan yihiin ayuha alaxiba waxbarashada iyo dhallinyaradu sabir bay u baahan yihiin wada jooggu sabir buu u baahan yahay sida in badan culummadu noo tibaaxeen noo sheegeen in la kala tago waxba uma baahna cilmina uma baahna caqlina uma baahna warna kala wadi weeye hebelowna kala wadi ina kala dhaqaajiniyo yaynaan isdilina na kala dhaqaaji laakiin in la wada joogo waxay u baahan tahay cilmi iyo caqli iyo sabir iyo inaan la isdilin iyo in si fiican loo wada joogo iyo in ilaahay la wada caabudo iyo in wax la wada qabsado iyo maskax rageed waa mudacyo afkoode maskax rageed waa dhalinyaro mudaca ma garanaysaan ya irbadna maxaadhna ya ma tafsiir lghariibi bilghariib ba tafsiir lghariib bilghariib miya adigu irbadaad garanaysaan soo maaha waxoo dhan waad garanaysaan dadka qaar aan garanayn baa jira bahalkan mudaca waa bahal sidan geed iyo waxbuu ku leeyahay laakiin bir yaroo irbadoo kale oo jawaanada iyo waxaasaa lagu tashaa marka af fiiqan buu leeyahay irbadaba ka soo qaad 2 irbadood afkood isaar haddii lagu yihahda ka war ma saari kartaa misu keeni kartaa martana xagga kaa mari tanna xaggan tan xaggan tan xaggan mid indhaba ma hayo mid lalabuu qabaa waa sidan marka hore uusan kor u hayn karinba marka maskax rageed waxaa la yidhahdaa maskax rageed waa mudacyo afkood isugu kaa beegmi mayso kanaa sidan dhi mid kale xagga kale aadi war sidan aan yeelno maya saa aan yeelno war annaga madaxweynaha qaadano maya annaga ra-iisul wasaaraha qaadanayna ma sidan weeye kan weeye sidan caynkan maanta marka in la isla doondoonto oo la isu soo dhoweeyo caqli iyo dhakay u baahan tahay iyo maskax sabir bay u baahan tahay waxay u baahan tahay wada noolaasho iyo akhlaaq bay u baahan tahay
وأخلاق دي ودن مرك أيها الأحبة هذا الكي قال كاسن كسو جبينيا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرنا بأسماء الحسنى والصفات العلى إنه نقول درو كوا صابرين تا بدون حساب أبال كود ونقول دونه هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاه الله خير الجزاء. الله سبحانه وتعالى waxaan weydiisanaa sheekh miisaanka xasanaadkan uu saaro nakala oo nagu anfaco kuwi yani wax ku qaateen oo naga dhigo min alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana